wakiilada beesha caalamka ayaa xalay ugu digay madaxda Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed in aysan ka tagin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii ay shir gaar ah ku yeesheen xarunta qaramada midoobay ee Xalane. Sida aan xogta ku helnay, shirkaasi ayaa looga hadlayay sidii loo badbaadin lahaa fashilkii shalay ku yimid wadahadaladii loogu gogol xaarayay shirweynaha wada tashi ee xalka looga gaarayo khilaafka doorashada ee Soomaaliya. Ila ku dhow shirkaasi ayaa xaqiijiyay in madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay fashilkii ku yimid shirka ay ku eedeeyeen madaxda Jubbaland iyo Puntland, iyagoona wakiilka beesha caalamka ka codsaday in la fasaxo si dib ay ugu laabtaan deegaanadooda. Wararku waxay intaasi ku darayaan in xubnaha beesha caalamka ay ka diideen madaxda saddexdaas maamul goboleed dalabkooda ahaa in la fasaxo, waxaana lagu wargeliyay in aysan ka tagi karin Muqdisho, isla markaana garabkii shirka ka baxa loo aqoonsan doono qaswade. Wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa in sidoo kale maanta ay la kulmaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo dowladda federaalka ay ku eedeysay in ay fashiliyeen shirkan, inkastoo ay iska difaaceen eedaasi. Shirka teennada ee Fasyooni ugu socday madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa shalay fashilmay, waxaana xukuumaddu shaacisay in Jubbaland iyo Puntland ay shirkan fashiliyeen, isla markaana ay diideen wax kasta oo xal ahaa. Hase yeeshee, war-saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen Jubbaland iyo Puntland waxay ku sheegeen in aysan ka warqabin shir fashilmay, kaliya ay ka warhayaan in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dalbaday in la tashiyo uu sameeyo maalmo aan la cayimin. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxay sidoo kale cadeeyeen in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka iyo sii socoshada shirarka xalka loogu raadinayo khilaafka doorashada ee Soomaaliya. Ila ku dhow shirka dhaxmaray xubnaha beesha caalamka iyo madaxda maamulada taabacsan dowladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in beesha caalamku ay culays ku saartay madaxda saddexda maamul in aysan shirkan ka bixin, maadaama markastay u hoggaansamaan go'aanka uu qaato madaxweyne Farmaajo. Waxaa haatan bilowday dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo lagu doonayo in shirka hogaamiyaasha Soomaaliyeed ay sii socdaan ilaa xal looga gaariyo khilaafka doorashada ee dalka. Labada dhinac ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo khilaafka dhanba uu ka dhex jiro ayaa hadda midba midka kale ku eedeynaya inuu fashiliyay wadahadaladii ee Fasyooni ka socday ee gogol xaarka u ahaa shirweynaha wada tashi. Isxaaq Rashiid Maxamuud, 5TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier